Asalaamu calaykum. Waan idin salaamay walaalaha channelka ku xiran. Mararka qaarkood nolosheena waxaa ku yimaada dhibaatooyin iyo cadaadis taasoo dadka qaarkood noloshooda dhinaca kale u rogto. Xagga dadka kalena dhibaatooyinkaas uga faa'iidaystaan maslaxadooda, kuna horumariya noloshooda iyagoo ka faa'iidaysanaya fursadaha ku qarsoon meel aan fursad dadka kale ka raadin, iyadoo u baahan dhiirani go'aan qaadasho kaa go'an adiga. Qisadeenu waxay ka dhacday qaaradda madow. Qisada halyeeygeedu waa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Malcolm, waxayna dhacday intii lagu guda jiray 2012. Wuxuu ka dhashay Malcolm qoys tabaqada hoose ee nolosha ku jira, weliba wuxuu ka dhashay qoys jaahiliin ah oo waxbarasho iyo tacliin shaqo aan ku lahayn, lana tacaalaya siday u heli lahaayeen waxyaabaha aasaasiga ah iyadoon xitaa koronto ka jirin. Faqrigu wuxuu ku hareereysnaa qoyskooda xitaa macal tuuladooda, noloshooduna aad ayay u liidatay. Aabihii wuxuu ahaa dadka khimaarka ciyaara, isagoo maalin maalmaha ka mid ah ku waayay khimaarka dartiis lacagtiisii, weliba noqday qof ay diin saaran tahay. Iyadoo xaalku ku adag yahay qoyska, ayuu go'aansaday Malcolm inuu xaaladda wax ka bedelo, caawiyana qoyskiisa, xalna u helo faqrigan lugaha u aastay qoyskooda. Isagoo qorshihiisa koowaad ka dhigay inuu banneeyo guriga xaggiisa dambe, isagoo ku soo rogay qayb ka mid ah taayirada hore ee lasoo isticmaalay. Iyagoo dadkii jaarkiisa ahaa la yaaban yihiin wuxuu samaynayo wiil ka waalan, wuuna ku bixinaya lacagtiisa, gurigoodana qashinka uga soo buuxinaya. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay inuu shaqo ku bilaabay taayiradii, kagana yaabsaday wuxuu sameeyey sandal mataadi ah si xirfad ku dheehan tahay, tayadooduna sarreyso, hawl badan aan u baahnayn, qiimo jaban, munaasabna u ah fuqarada ama danyarta aan awoodin kabayaasha qiimahoodu sarreeyo. Wuxuu shaqaynayay Malcolm habeen iyo maalin, juhdi badanna gelinayay, isagoon weliba haysan qalab tayo sare leh. Isagoo sameeyey sandal tayadiisu sarreyso, isagoo u soo iibgeeyay suuqa, waxayna noqotay siduu rabay. Isagoo iibiyay badeecadiisii dhammaan, kuna iibiyey qiimo jaban iyo kabahoo tayadoodu sarreyso. Wuxuuna soo iibsaday taayiro kale, isagoo sameeyey mar labaad kabihii, laakiin markan wuxuu ka bedelay design-ka, isagoo ku soo biiriyay waxyaabo qurxinaya oo kale nashqad ahaan si ay bilicdoodu dadka u soo jiitaan. Halkaana kuma joojin ee wuxuu isla markiiba u gudbay marxaladda labaad, isagoo aas-aasay warshad yar. Markuu cusboonaysiiyey dhismo qadiimi ahaa, wuxuuna yeeshay shaqaale 10 qof gaaraya. Waxaa ballaadhay wax soo saarkiisii isagoo oo gaadhay suuqyada dalka ugu waaweyn. Laakiin Malcolm xaggaa miyuu ku joojiyey wax soo saarkiisa? Waxa uu waqtigiisu isku raba, waxaa bilaabay dad kale in ay fikirkiisa xadaan, isagoona yeeshay tartamayaal. Isagoo haddana u soo jeesaday meel kale oo isla taayiradii ah, laakiin fikir cusub ah. Wuxuuna sameeyey alaabta guriga oo raqiis ah, sidoo kale qurux badan. Siduu yidhi Malcolm, taayiradu waa kanzi qarsoon, ugana faa'iidaysan kartid wax walbaad u baahatid. Wuxuu bixiyey Malcolm dayntii lagu lahaa qoyskooda, wuxuuna ugu bedelay faqiiriintii qoys ganacsato heer sare ah. Ugu dambayn, ka waran qisada Malcolm adigan daawanay. Waxaan kuugu darayaa awoodaha Ilaahay ku siiyey ma xadidna. Fadlan wax fiican kaga faa'iidayso. Fadlan, maadaama muuqaalka dhamadkiisa soo gaaray, waxay ka macno tahay in aad ka hesho. Like noo saar, subscribe dheh haddaad meesha ku cusub tahay, asxaabtaada la wadaag ugu yaraan 1 qof, commenti ka soo bixi. Waad mahadsan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.